محمد عبد النور جيرو هاجر دكتور فنح محمد ديرها شنتاس أنا كوجو شاقينه شنتاس أي دكار نوع هايستا هدي UNDP أي دكار كايستا كاشان له ميلتري جوا هايستا وزارة عافمات دكار كوا كايستا كي دكتور كو إسبيتال كوا كايستا مفهمت so think مركا هذه هرت قرن إيش كيه فرانيجا ما وهكا مركا دكار كأركتو inaad iga degto waa ku qasbantahay moogtahay waa 37 jir la bilaabmay soo shaabixii al-shabaab ka madax banaan awoodihii ka falaagoobay maxkamadihii islaamiga haddana ahaafa Soomaaliya iska jirayso su'aal hal tilaab waa markaa ku dhahay waxaan ka wadaa qofka fadhiyo xabadaas ma ka badbaadi karo kan istaaganne kama badbaadi karo kan jiifane babadii markay ku dhacdo ruubiya ku dhaca waa istaaga adiga laba joora haddaysan dhimanin meeshaas dhaawac xoog leh ku gaarayo jabhad amniyaad isku rogay qaybihiisa sida qaraxyada iyo dilalka gaadmada ayuu ahaa aniga qaraxaas inta aan ku lahaa waxay ahayd inaan islaaci sameeyo waxay ahayd shaqadii la dhig inaan hubin aan ku sameeyo waxay ahayd inaan adan islaac kale ku sameeyo shaqadii la qaban karo shaqadii sida lagu qabto wixii meesha ka dhacayna waa isla wada ogtihiino waxaad banaanka yaalo waxa uu kala sinaa qof argagixisa inta uu yahay ama uu soo ahaa waxaase u dheeraaday diiwaan aan hortiis lagu baraarugsanayn si la isla wada og yahay waxaan jawaab uga baahanahay sababaha doorashada daktarka neerfaha marka soo think ani waxaanan difaaci karin oo biri ka maalin hadii wax ka yimaadaan ma taabsan kariba waa ku sheegiba hadii hadda ay dhahdo maxaa cadeynaa inaad dhakhtar tahay suluba joogo durdura joogo dib raxma joogo dokumentigiina waa kana adi marka iga dhaxsaa dhakhtar ma bala dhigi kara mugti that's why aan u doortay macnaha kulliyadan xirfad kale oo hadda fiir hadda iraado ani waxa ay dhakhtarka internal medicine ka ah internal medicine xamar waa la yaqaan konta dhakhtar joogto kala nooc waa la yaqaan laakiin internal medicine cusub ay imaaday yaa hadda ka soo baxay oo lagu baarano laakiin qofka neurologist waa magaciisa fanax Allah inuu cusub yahay laga yaabaa naga daa ma lagu sii mashquulay 3 milyan bar ku nool 3 milyan bar 200 qof hadda ka yeeshay biilka ilmaha kaaga badan tahay in qof iska sheegtaa waxa uu san ahayn way sahlan tahay waase culus tahay hadii la iska rabo la falgelida beenihi aad soo dhoodhoobtay waxa la waa central nervous system iyo peripheral nervous system la central nervous system waxa la isku dhahaa waa peripheral central nervous system oo loo soo gaabiyay CNS iyo thalamus nervous system oo loo soo gaabiyay ANS waa inta peripheral nervous system waxa la isku dhahaa wixii madax ka dambeeyo ma fahamtay waa xididadii waa dareensidayaashii waa murqihii intaas la isku dhahaa marka hore waaba ka fakarayba ina adi ii timaado ani aan kugu qanciyo inaan filligan ani aan difaacan karo anigoon difaacan karin filligan inaan shaata gishto waa maba dhihinba laakiin waxa oo dhan waxa looga dan leeyahay marin habaabinta hay'adaha amniga iyo u gogol dhigashada sababo uu gabaad kaga heli karo reerkiisa iyo saaxiibadiisa kale markaan aniga caasimadan soo galay waxaan ahay nin dhakhtar oo isbitaalista oo wadankaas ku soo waxbarto meeshaas qabiilkayga waxaan ka iibiyay inaan dhakhtar ah ma fahantay taas xaq dhig sanada joogay kadib waxa jirtay dawladda in lagu biiro saraakiisha ku biirtay leeli sargaal lagu qaadanayo haddana filim waxa keenay in dawladda aan ku biiro darajo fiican dawladda aan ka helay laakiin caafimaadkaas aan ku shaqeeyo labadaas ayaan qabiilkii aan ka iibiyay so think marka dhakhtarkan wuxuu yahay cover laakiin shaqadayda saxda ah oo ani caasimadda aan ku joogay waa shaqooyinkan qaraxyada intii uu al-shabaab ahaa waxa uu ka soo shaqeeyay gobolada Hiiraan Jubbooyinka Gaday iyo magaalada Muqdisho waxa uu soo isticmaalay magacyo u gaar ah kuwa la leeyahay al-shabaab dhexdooda sida Maxamed Deere Khalid iyo Mustafa Caato mayara dambiyada argagixisada ee loo haysto waxa ka xusi karnaa qaraxyo ka dhacay maqaaxiyadan yar oo ku yaala agagaarka isgoyska Jubba July 2 iyo Agosto 19 2021 waxa uu lahaa agaasinka qaraxyadaas maadaama ay u suura gashay in indhacadeeskiisii midabyada badan uu xitaa dego xeyndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inta aan baladweyn laga soo xirin Maaj 13keedii 2022 waxa uu keenay naftiyaha ligihii isku tuuray ergadii doorashada reer waqooyiga ee marayay ceelgaabta xamar jajab February 10keedii 2022 waxna ma dhowranay xitaa sharafka ciidan ayuu suuqa ka soo iibsaday hadii ay darajo iyo darees tahay markii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka isbedelka hoggaanka ah ku yimid
doorashadii 15 May kadib 2022 waxay soo cadeysay hay'adda in Maxamed Cabdi Nuur Jiro uusan ahayn diiwaanadii hore ee faylka u galay. waxaa hoggaanka arrimaha dibadda sirdoonka ay beeniyeen dhammaan wadada shaqo iyo waxbarasho ee looga been sheegtay wadamada Qatar, Kenya, Uganda iyo Talyaaniga. gacantan Ibrahim ka noqotay waa joogiyaa hadda ilaa hadda wali waxa ugu xiran faashad waa joogiyaa Abu Bakar Allah shantii kale saddex waa ku dhimatay labo mid dhaawac garaabita uu ku noqday midna asoo dhaawacay oo jinkada ka dhaxbaxay event loo galay qoryihii telefoonadii laga qaatay waa laga tagay askarti waa lagu weeyeen marka ana gaariga waxa idin wadadii ay istaagneed ma ahane hore u soo socday meesha qaxootiga dhinaceeda soo istaag waa lagu weeyeen markii lagu weeyeen baabuurkii u tageen baabuurkii soo fuuleen waxay soo aadeen Madiina xigtay soo aadeen ana waxaan rabaa hubkan inaan de moogtahay gurigii lama keeni karo 14 January bishan aynu ku jirno ay maxkamadeyntiisa u soo dhamaatay waxa uu soo maray dhammaan habraacyadii maxkamadeed ee go'aan gaarista maanta ay maxkamadda ciidamada ku xukuntay Maxamed Cabdi Nuur Jiro dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiintii ku nafwaayay weeraradii uu fulintooda lahaa sida kan Garas Baaley oo ay ku dhinteen Allah u naxariistee Farxaan Cabdi Guure, Cali Yuusuf Sheekh Maxamed iyo Maxamed Cabdiraxmaan Cabduqaadir oo 4 jir ahaa sida warbaahinta uu sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.